السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الميل كستود عالم كجوتان كسر هذا مقال كلا عصب. مقال كنا أصحاب حكي قهل دونا وحوياي كوبراتكو. قدام ويجرت أصحابنا وكسر بدنا يسبرت يوتيوب كا. مقال كم حنقول تلاقينا نوقف فيديو وحوياي كوبراتكو. سيدو كلا أصحاب تقارك من اليوتيوبرز كأيام فانسين وحوياي كوبراتكو. وهرين تينا المقال كنا كده قلنا حسويدين ناس دحين سؤالات. سؤال شكو واضح نقول سوا محي كوبرات. سؤال لو واضح نقول دوتا sideen ku garan karnaa muuqaalo leh copyright su'aashana saddexaad waxay noqon doontaa sideen uga saari karnaa muuqaalo leh copyright muuqaaladaas oo ku jira YouTube-kaaga ugu horeyn haddaan qeexno ereyga copyright af Soomaali waxa uu ku noqonayaa xuquuq copyright-ka waxa uu noqon karaa xuquuqda qofka uu leeyahay muuqaalka tusaale ahaan imika hadduu qof soo geliyo muuqaal YouTube-ka tusaale ahaan hadduu qofku soo geliyo muuqaal barta YouTube-ka kaasoo ku soo duubay moobilkiisa gacanta ama kamarada fiidiyowgaas waxa xaq u yeelanaya qofka soo galiyay sidoo kale hadduu soo dhigo music ama wixii la mid ah oo isagu soo saaray waxa noqonaya qofkaas qofkii lahaa sadarteed qofkii ka qaata ama dib u soo galiyo barta YouTube waxa noqonaya in lagu qabsado wax loo yaqaano copyright-ka su'aashana labaad waxay noqon doontaa sideen ku garan karnaa muuqaalo leh copyright muuqaaladaas oo ku jira bartaada YouTube-ka ugu horeyn waxaad isku daydaa inaad tagto YouTube-ka application-ka YouTube-ka markuu kuu soo baxo waxaad ku dhufanaysaa calaamadda amba loogada channel-kaaga waxaad toos tagi doontaa videos-kaaga waxaad ku garan kartaa inuu leeyahay copyright iyo in kale waxaad ugu dhufan doontaa midmid adoo ogaanaya inuu muuqaalkaagu leeyahay copyright iyo in kale muuqaalkan waxaan ka soo sameeyay mid ka mid ah YouTube-skayga kaas oo ku tijaabin doono video leh copyright videoga sida ka muuqata daawadayaal waxa uu leeyahay copyright haddaba maxaa lagu garanayaa in copyright leeyahay muuqaalku waxa lagu garanayaa calaamadda download-ka waxaa saaran flag sidaa daraadeed waxay noo muujinaysaa in muuqaalkan ku jiro copyright oo uu muuqaalkan soo dhigay qof hore sidaa daraadeed laga soo koobiyay su'aashana saddexaad waxay noqon doontaa daawadayaal sideen uga saari karaa muuqaalada leh copyright-ka hadda waxaan soo aragnay muuqaal leh copyright kaasoo soo aragnay habka lagu garanayo amba sida loo garanayo haddaba su'aashana saddexaad waxay noqon doontaa sideen uga saari karnaa muuqaalkan leh copyright kaasoo kugu jira YouTube-kaaga ugu horeyn waxaad soo furanaysaa any browser kasta oo kugu jira moobilkaaga gacanta tusaale ahaan Google YouTube/features sida aniga halka ay ka muuqata markaad ku qoranto kadib waxa si toos ah ugu sii dhufan doontaa YouTube/features waxa ku soo bixi doonta qaab noocan ah kaasoo ku sheegaya kanaalkaaga amba YouTube-kaaga kaasoo ka kooban qaybihi kala duwan ee YouTube-ka haday noqoto monetization-kii live streaming-kii live-kii longer videos-kii dhammaantood kadib waxaad soo furan doontaa halka calaamadda saddexda dhibcood kadib waxaad ka dhigan doontaa desktop side si uu kugu dhigo qaabka desktop-ka hadda saas ayuu nooga dhigay kadib waxaan geli doonaa return YouTube studio ayaad ku dhufan doontaa dib wuxuu kugu celin doonaa YouTube studio-ga halkaas oo ay ku yaalaan information dhammaystiran oo ku saabsan YouTube-kaaga hadda waxaan si toos ah u galnay YouTube studio-gii waxaanu ka sii dooran doonaa qaybta videos-ka haddaba mobilku ka duwan yahay computer-ka waxaad soo furi doontaa saddexda dhibcood ee yaryar kadib waxaad ka dooran doontaa videos-ka hadda videos-kii baa inoo soo kacaya waad aragtaan hadda videos-kii imika waxaynu eegi doonaa videoyada haddaba leh copyright-ka imika videogaa hore kale waxa ku qoran July videogaa hore kale wuxuu leeyahay copyright sababtoo halka ay ku qoran tahay restriction waxa ku qoran copyright videoga aan copyright lahayn nan baa ku qoran videoska kale copyright kalena xagga restriction-ka waxa ku qoran maxay copyright haddaba sideen uga saari karaa copyright-ka videoga waxaan ku dhufanayaa calaamadda amba halka ay ku qoran tahay copyright kadib waxa ay soo bixi doontaa qaab noocan ah Sidee ayaan ku sii dhufan doonaa Sidee markaan ku dhufto waxaan ogaan doonaa videogayga inteeda ay iga jirto copyright inta copyright-kayga ayaan ogaan doonaa hadda waxaan arkayaa videogayga intii copyright-kayga jirtay
وكاي علامدي وانت ugu dambeysay fiidiyowga inuu sheegin copyright inaga jirto sadarteed inta wuxuu ku leeyahay maad ka jari doontaa mise waxaad keen doontaa wax bedel marka waxaad ku dhufanaysaa maxay select action marka aad doonaysid inta iska jarto waxaad ku dhufan doontaa trim out hadad replace keenayso fiidiyow kale oo fiidiyowgan aad ku bedelaysaa replace hadad mute doonaysid mute option ugu dambeeya asxaab markuu soo dhigo oo mid tahay in segmentkii ka saarto ama intii copyright ku jiray talabaad wax noqonaysa in replace iso wixii ama fiidiyowgii oo fiidiyow kale u dhigma soo galsiyo saddexaad in codkii ka xidho marka ka doontid marka dooratid matalo kale imka xanaanu doonaa trim out marka wixii guur ma continue double click your video before continue marka waxaad ku dhufanaysaa maxay double click baad ku dhufanaysaa fiidiyowgaaga intaanad sii wadin marka double click video ugu dhufato waxaad ku dhufanaysaa continue kadibna waxaad ku soo dhufanaysaa maxay continue markaad ku dhufato wax ku soo saaraya trim yaan jaraa yes badana sa trim baad ku dhufanaysaa saasuu kaaga baxay intii copyright kala ahayd asxaabi wada aragteen fiidiyowgii wala process gareynaya muuqaalkeeni maanta intaas inuu joogaa daawadayaal fadlan hadaad ka heshay fiidiyowgan amba uu wax faa'iido la aad ka faa'iiday insha Allah waxaan rajeynayaa inaad sii share garayso oo gaadhiso